silada nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutubteena laguma sheegin markasta waxay sameynayaan turjumooyin cusub bay sameynayaan turjumooyinkaas maxay u sameynayaan nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka waramidii laga waramay inay dadka ka qariyaan sida xaqiiqada u fahmin dadka xaqiiqada ay fahmaan waxa dhacayso inay nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam raacaan ay muslimiin noqdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay quraanka suuratu nisaa suurada afaraad aayada 46 ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay min alladhina hadu ku yuhuudaha yuharrifuna al-kalima an mawaadi'ihi waxay ka leexinayaan kalimadooyinka qaarkood booskooda ay ka leexinayaan waxay ku sameeyaan kalimadda macnaheeda ay ka bedelayaan sidii kalimadda xaqiiqadeeda u qarsoonto ilaahay subhanahu wa ta'ala aayad kale wuxuu ku leeyahay suuratul baqara ku jirto aayada 146 ilaahay wuxuu ku leeyahay alladhina aataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kuwi aan siinay kitaabka yahuud iyo nasaaro waxay u garanayaan nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxay u garanayaan siday u garanayaan oo kale wiilashooda marka waa in fariiqo minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun laakiin koox ayaga kamid ah ba waxay qarinaysaa xaqi in nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutubtooda lagu cadeeyay siday u qariyaan xaq dadkina xaq u ogaanin bay rabaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka waramay inay yihiin xaq kharis